dugsiyada al irshaad schools السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي مالي ونكسن ومالين كله عشرة أي نكون دجانيني أونلاين ما أنت حسد أي ندجانينا وساينس مادة لبعض حسد لبعض ما أنت وحين قلنا ساينس ما حين قلنا ساينس وحين ندجانينا 10 روان كيسو هاي فود أو 10 ما أنت هورا أي ندجانيني أو هالكي أون لقاسي قاضيو روان كانوا أم هاي فود cuntada food cuntada unit 5 cutubka shanaad page-ka uu kaga yaalo buugeeni 10ka aynu ka qoranayna daabacna wuxuu kaga yaalaa page 49 ilaa 50 page-ka waa 49 ilaa iyo 50 maanta 10keenu faa'iidooyinka maanta ujeedooyinka 10ka aan ka leenahay waxa weeyaan anid horta idiira xasuusiye 10kii hore soo dhiganay food wuxuu ahaa cuntada oo aynu ka soo faa'iideysanay cuntada inaynu u cuno oo bini'aadanka iyo noolaha dhaniba u cuno si uu ugu badbaado oo ugu noolaado oo gaajada uga badbaado ugu noolaado waxaynu kale ka soo faa'iideysanay aynu ka soo baranay cunto maalmeedka maalintii oo dhan uu aadamuhu cuno inay yihiin cuntooyin kala gadisan maanta 10keenu oo ahaa maanta 10keenu food oo halkii ka sii socda weeyaan waxaynu dhiganaynaa cuntooyinka cunto maalmeedka aynu cuno ayaynu kala baranaynaa waxaynu kala baranaynaa ujeedooyinka 10kiisu yahay inaynu kala baranno waqtiyada wax la cuno imsa waqti weeyaan maxayse kala yihiin aan inoo bilaabo 10ka marka hore 10ka aan sharaxayaa waan akhrinayaa si fiican ila soco marka aan dhameeyo ayaa qoraalka la bilaabaya la qoraya insha Allah breakfast 10keenu maanta muxuu ka bilaabmayaa breakfast oo aynu soo dhiganay oo ah quraacda breakfast quraacda hadaba quraacda maxaynu cunaa ardayow quraacda maxaynu cunaa bini'aadanku uu ku kala duwan yahay oo qofba wax gaar u cunaa qofba wixii Ilaahay siiyo cunaa laakiin sida guud ee dadku ay u badan yihiin waxa la cuno ayaan inoo soo yara koobay sauce waa maxay waa suugadu maaha suugadii weyneeda qadada la cunay waxa weeyaan suqaar yar ama beed yar ama wax yar oo dhanaan oo dadka qaar ay ku cunaan laxoox iyo laxooxda tea shaaha bread iyo roodhida breakfast-ka maxaa la cunaa baa lagu ardayo breakfast maxaa la cunaa waxaa la cunaa sauce suugo oo ah suqaar yar beed yar wax yar oo dhanaan oo dadka qaar baan laxooxdiya shaaxa isku cunin oo jecel wax yar oo dhanaan inay laxooxda ku soo cunaan ama roodhida ku soo cunaan iyo laxoox tea shaax bread iyo roodhi intaas waa maxay waa quraacdii breakfast waxyaabo kale oo la cuni karaan way jiraan laakiin waan soo koobay oo badanaa inta ay dadku cunaan ayaan ku soo koobay lunch meal qadada maxaa qadada aynu cunaa ardayow waxa la cunaa bariis meat hilibku ka xoolaha kaliya maaha waxa ku jira noocyada hilibka kalluunka digaaga iyo hilibkeeni xoolaha oo noocyadiisa la ari geel lo marka meat waa hilib oo dhan baa laga wadaa qofba ku cuno pastada oo laga wado pasta dhaadheer iyo pasta gaagaabka la isku soo koobay vegetables iyo khudaar khudaarta waxa looga jeedaa salaadka baytaraafka muuska leendhanaanta waxyaabaha lagu dul cuno qadada vegetables khudaar aanu soo gudubno dinner meal cashada ardayow haddaba maxaa la cunaa cashada dadku way kala duwan yihiin qofba waxbuu cunaa waan inoo soo yaro koobay sorghum
hadhuudhka sorghum hadhuudhka sorghum hadhuudhka beans digirta beans digirta milk caano bread roodhi dadku way kala duwan yihiin qofba waxbuu cunaa dadka qaar baa hadhuudh iyo caano isku cunaa digir iyo caano isku cunaa shuuro iyo caano roodhi iyo hadduu doono suugo yar bini aadamku way kala disan yihiin laakiin qof walba wixii uu helay ilaahay siiyo ayuu cunayaa sorghum hadhuudhka beans digirta milk caanaha bread roodhida dinner meal cashada cashada maxaa la cunaa sorghum hadhuudhka beans digirta milk caano bread iyo roodhi waan ku soo celinayaa ha layga daba akhriya ardayow si fiican ha laygu fiirsado waxaa lagu yidhi cuntada breakfast quraacdaynu maraynaa quraacda maxaa la cunaa breakfast quraacda maxaa la cunaa haddaba waxaa la cunaa soos suugo oo aan kuugu sharaxay suugo yaroo fudud beed yar suqaar yar dhandhanaan yar oo dadka qaar baan laxooxda iyo shaaxa cunin soos suugo laxoox tea shaax bread iyo roodhi qaybtan kalena waxa weeyaan lunch meal waa waqtigeeni labaad waa maxay lunch meal qadada maxaa arday la cunaa qadada waxaa la cunaa bariis hilibka waan kuu sheegay noocyada kala duwan hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan hadduu yahay ari hadduu yahay geel iyo lo waxaa kaloo soo gelaya hilibkii kalluunka waxaa kaloo soo gelaya hilibkii digaaga hilib meat wuxuu koobsanayaa noocyada hilibka baastada oo iyadna koobsanaysa baasta gaagaab iyo baasta dhaadheer micnaheedu waxa weeyaan macaroni iyo baasto aan vegetables iyo khudaar khudaartu waa maxay salaadka baytaraafka muuska liindhanaanta khudradda lagu cuno qadada ayaa looga jeedaa waqtiga saddexaad oo ah dinner meal cashada haddaba cashada waxaynu cunnaa waxyaabo badan inta bartan aan ku qoray oo keliya hadday quraacda tahay iyo hadday qadada tahay iyo hadday cashada tahayba lama cuno laakiin waan soo yaro koobay waa inta dadku badanaa ay cunaan wax ka gedisanna waad cuni kartaa intana waad cuni kartaa sorghum hadhuudhka beans digirta milk caanaha bread roodhida aynu u soo gudubno qodobka afraad oo ah times waqtiyada for eating wax la cuno waqtiyada for eating wax la cuno we have waxaan leenahay 3 times saddex waqti for eating oo wax la cuno we have waxaan leenahay 3 times saddex waqti for eating oo wax la cuno maxaa ka mid ah saddexda waqti morning subaxii noon duhurkii night habeenkii morning subaxii maxaad cuntaa waxaa la cunaa breakfast morning subaxii maxaa la cunaa breakfast inaga halkaa kusoo sheegnay morning subaxii maxaa la cunaa breakfast noon
ظهركي ظهركينا محل عنا lunch meal قذذا نون ظهركي محل عنا lunch meal قذذا night هبينكي night هبينكينا محل عنا dinner meal عشاء waxaynu haysanaa 3 waqti oo wax la cuno oo ah subaxii iyo duhurkii iyo habeenkii subaxii maxaa la cunaa quraac duhurkiina qado habeenkiina casho laakiin caruur idinku maadaama aad caruur tihiin 3 waqti wax ka badan waxbaad cuni kartaan intani waa dadka waaweyn oo kaliya nus saacad cuni kartaa casariyaad cuni kartaa waayo waxaad u baahan tahay adigu ilmo yar baad tahay waad soo koraysaa si aad wax u dhigato oo awood u yeelato oo ugu korto oo ciyaalka muxuu ahay wax ula dhigato waxa loo baahan yahay inaad cuntooyin kale oo sida dadka waaweyn oo kale aan ahayn waxaan ka wada calashaan waqtiyada nus saacad waad cuni kartaa casarina waad cuni kartaa morning subaxii noon duhurkii night habeenkii qodobka afraad aan ku soo celiyo waxa lagu yiri times waqtiyada for eating wax la cuno times waqtiyada for eating wax la cuno we have waxaan leenahay 3 times 3 waqti 3 times 3 waqti for eating oo wax la cuno for eating oo wax la cuno maxay kale yihiin morning subaxii noon duhurkii night habeenkii morning maxaynu cunaa breakfast morningkii maxaynu cunaa breakfast noon waa duhurkii maxaynu cunaa qadadana maxaa la yiraahdaa lunch meal night habeenkiina maxaynu cunaa dinner meal cashada arday maanta cutubkeeni shanaad ee ahaa food halkaas uu inoogu soo dhamaaday insha Allah waxaynu casharka ka faa'iideysanay maanta cuntooyinkii kala duwanaa ee aynu casharkii hore ku soo dhiganay ayaynu kala baranay breakfast waxa la cunaa sauce oo ah suugo yar oo fudud laxoox tea shaah bread iyo rooti waxaynu kale ka faa'iideysanay lunch meal qadada maxaa la cunaa rice bariis meat hilib pastada and vegetables iyo khudaar meat waa inaad fahantaa in noocyada hilibkoodani ku jiro pastadana pasta gaagab iyo pasta dhaadheer baa ku jira oo macnaheedu pastadii caadigeed iyo macaroni vegetablesna waxa weeyaan khudaarta muus Allahumma salli ala Muhammad baytaraaf leendanaan salaad waxyaabaha cuntada lagu darsado vegetables khudaar qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dinner meal cashada maxaynu cunaa sorghum haruur beans digir milk caano bread rooti waan ku sheegay cuntooyinka barta aan ku qoray wax ka gedisan waa la cuni karaa laakiin badanaa dadku waxay cunaan ayaan ku soo yara koobay cunto marka aad cunto ama quraacadii ama qadadii hadaad ka weydo hays oran macluumaadu maxay u qori weyday ee waan soo koobay cuntooda intan wax ka badan waa la cuni karaa qodobkeena afraad in ka faa'iideysanayna muxuu ahaa waqtiyada cuntada la cuno inaynu leenahay 3 waqti oo cuntada la cuno 3 waqti oo cuntada la cuno oo ah morning oo aynu cuno breakfast morning waa maxay subaxii oo aynu cuno breakfast noon duhurkii oo aynu cuno lunch meal night habeenkii oo aynu cuno dinner meal cashada waan ku sheegay waxaan ku yiri adinku caruur baa tihiin 3 waqti oo kaliya waxba ma cuntaan nus saaca la cunaa waxa la cunaa casariya ama cuwaaf casharkeenu arday maanta halkaas uu inoogu joogaya insha Allah intaynu xiisada ku xigta iskugu imanayno waa inaad sii shaqaysato casharka qor ha feegarin sida aynu u qornay u qor haddii halkan farta ay ku yara muuqan weyda ama aad ka fahmi weydo buugeeni waniga ku calaamadiyay page-ku ku yaala 49 ilaa 50 page-ka 49aad ilaa page-ka 50aad waa inaad ka qorato casharka sideeda u qor shaqo wanaagsan insha Allah xiisada ka xigta intaynu isku imanayno is arkayno waan idin salaamayaa shaqo wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dugsiyada al irshaad